السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري وهذا أصحابتا دمانتين كفران يوتيوب كان عالمي أوفيشال. maanta waxaynu dib ugu noqonaynaa dhigashadii koorsadeennii cusbayd oo maraysa meel dhexe. run ahaantii asxaabta ku cusub youtube-kan waxaan idinku baraarujinayaa in aad soo daawataan bilowgii koorsadan intaa in ka baxsan haddii aan faahfaahin ah oo aan nafteeda ku saabsan idinla wadaago. magacaygu waa Cabaas Jaamac Cali, waxaan ahay macallin dhiga luqadda Ingiliishta. kuwii hore inoogu xidhnaa asxaabtii waxaan idinku baraarujinayaa idinka inaad like-ta iyo share-ta muuqaalka inoo taabataan. haddaba intaas oo dhacay ahayd maanta waxaynu dhigaynaa muxuu yahay, muxuuse kaga duwan yahay ee kaga gedisan yahay casharadii hore. waxaan maanta dhigaynaa waa there was iyo there were ayaynu dhigaynaa maanta. waa yahay haddaba there were iyo there was maxay qabtaan ayaynu ka jawaabaynaa. su-aasha markaan ka jawaabno waxaynu dib isugu xidhi doonaa casharka ka horreeyey kan oo ahaa there is iyo there are. ayay xidhiidh ka dhexeeya casharkan oo aynu isku xidhi doonaa. waayahay haddaba waxaa ku qoran halkaa there was iyo there were is used waxaa loo isticmaalaa to describe in lagu sheego ama lagu qeexo that something existed in the past, inuu shay jiray waqtigii lasoo dhaafay. haddii aan si soomaaliyeysan kuugu sheego maxay yihiin there was iyo there were, maxaase loo isticmaalaa? keliyata waxaa loo isticmaalaa markaad ka hadlayso wax jiray waqtigii lasoo dhaafay bastigii oo aad doonayso inaad tidhaahdo waxaa jirtay sheeko jacayl oo dheer, waxaa jirtay dagaal dhex maray, waxa jiray. intaa markaad leedahay oo kastaba waxaad isticmaalaysaa there was iyo there were midkood oo aad ku salaynayso. xagga dambeaynu ku arki doonaaye subjectiga qaadanaya ayaa kala sheegaya haddii ay tahay was iyo hadday weer tahay maxay ku kala duwan yihiin was iyo weer. xagga dambean ka ogaan doonaa taas. intaa horta ma layla fahmay asxaabta? waxaan doonayaa inaan sii wada muuqaalka qaybtan ayaan u daadegaya. haddana waxaa lagu yidhi past form of there is, there are, is there was, there were. waxaynu hore usoo qaadanay there was, there is baan leeyahay iyo there are. kuwaas waxay ahaayeen presentigan hadda la joogo. markaad leedahay waxaa jira dhibaataa jirta, dagaal baa jira, waxaa jira ee hadda jooga. laakiin markaad leedahay waxa jiray ee basti ka dhigayso there was iyo there were ayaad ka kala dhigaysaa. waayahay aynu isla sii eegnay exambaleka, waayo exambaleka ayaa si fiican waxa loogu fahmaa. tusaale haddaan soo qabto there is a car in the street, gaari ayaa waddada jooga. gaari ayaa waddada jooga oo hadda taagan. waa presentigan wax hadda la joogo. markaan basti u rogayo waxaan odhanayaa there was a car in the street, gaari ayaa waddada taagnaa. waayo waxaan isticmaalay there was oo halkii ahayd there is ayaan bedelay. intaaynan isla fahnayaan jeclahay. haddana aan isla soo eegna qaybtan oo run ahaantii ah qaybta ugu muhiimsan. waxaad ku ogaan doontaa there was iyo there were sidee loo kala raaciyaa, maxaanse kala siiyaa. haddaan dib kuu celiyo, aan xusuustaada dib u celiyo, casharkii kan ka horreeyana kuu celiyo, there is iyo there are waxaynu ku soo kala sheegno ku kala qaadanay wixii isla socotana waa waxa keliya. there is a book on the table, book ayaa saaray miiska dushiisa. waa hal book waayo is ayaan isticmaalay. sidii si lamida weeye halkanna waxa weeye wixii there was halkii ista unbaa was gashaye waa wax keli ah. waaniga halkaa kugu qoray. halka taa bedelkeeda there are aad soo aragtay halkii aarta ku jirtayna ay gashay waa. oo aarta waxay noo sheegaysay wax jamaca. sidaa si lamidana wee there were iyana waa wax jamaca oo laakiin waqtigii lasoo dhaafay ee baastigii jiray haddana aan jirin. intaa in layla fahmay baan jecelahay. waayahay
hadda waxaan u gudbi doonaa foomka iyo qaabkaad u samayn lahayd markaad adigu samaynayso equation aad su-aal ka dhigayso. halkan waxaad ku ogaanaysaa qaabka aad adigu u samayn lahayd su-aal markaad ka dhigayso ee aad leedahay miyuu jiray colaad ka dhaxaysa labadan dal, dhibaata miyay jirtay, lacag miyay taalay miiska dushiisa, miyay waxaasu jire, wax kastoo aad leedahay waxaas miyuu jiray ee wakhtigii lasoo dhaafay ee baastigii ah ayaad markaa qaabkii aad u samayn lahayd halkan ku ogaanaysaa. intii aan soo sheegay aan English u rogo exampleskii waayahay waxaan ku bilaabayaa miyay jirtay colaad u dhaxaysa labadan dal. Was there a conflict between these two countries? Was baan ka dhigayaa waayo colaadu waa maxay, waa wax keli ah maaha wax colaado fara badan. sidaasi la mid ah ayaad adiguna u samaynaysaa qaabka question formka ama su-aal uga dhigaysaa. waxaad soo horeysiinaysaa was there ama were there, kadib waxaad ku xejinaysaa shaygii aad markaad doonaysa inaad ogaato. aynu markaad koobaad eegno was there car in the street, wadada gaari miyuu taagnaa, halka tii dambe jamac laga dhigay ee la yidhi were there students in the class, arday miyay joogtay iskuulka. haddana waxaad ogaan doontaa qaabkii aad u samayn lahayd negative form amase qaabka diidmada ah saad uga dhigi lahayd. waayahay markii hore waxaynu soo aragnay in lasoo horeysiinayo markii su-aal laga dhigayo was there iyo were there laga dhigayo oo wasta iyo weerta la horeysiinayo. haddana waxaa laga dhigayaa qaabkan idiin muuqda ee ah there was markaad tidhaahdo not unku xeji, intaa ka bacdina wixii aad sheegaysay raacii. aan tusaalaha koobaad markaa sheegno there was not a car in the street. so there was not a car in the street, gaari ma uu taagnayn amase muu joogin wadada. exampleka labaad cafwan qoraalku waa khaldan yahay oo qoraalkii horaa raacay marka su-aal laga dhigayo in lasoo horeysiinayo weerta iyo was lasoo horeysiinayay sidii oo kale ay u qoran tahay. markaa deerta soo horeysay there were not students in the class, arday ma ay joogin galaaska. haddana ila soo fiiriya exampleska oo aan ku soo khatimayo muuqaalkeenan maanta. waayahay example 1 wuxuu sheegayaa there was a party last night, xalitole xalfad ayaa jirtay. there was an attack, waxaa jiray weerar baa jiray. there was an accident, shil ayaa jiray, shil baa dhacay. waayahay there were some cars in front of home, dhowr gawaadhi ayaa taagnaa guriga hortiisa. there were 3 new guys, waxaa jiray 3 wiil oo cusub, 3 dhalinyaro oo 3 nin oo cusub ayaa jiray. there were waxaa jiray 3 incidents, 3 dhacdo ayaa jirtay. incidents waa dhacdo, 3 dhacdo ayaa jirtay. bartaa waxay noogu ekaaday maanta muuqaalkeenii ka hadlayay there was iyo there were. assalaamu calaykum.